مدن مدحوينه وعسلامته لو دياره عطوا كتر مدن مدحوينه كسنه madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu kormeer ku galabixiyay xarunta Birjeex ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cisbitaalka lagu daweeyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee xarunta ku yaala iyo xarunta miiska saraakiisha oo caasimadda Hargeysa halkaas oo ay ka socdeen mashaariic lagu kobcinayo adeegyada ciidanka militariga Soomaaliland ay mas'uulka qaranka uga yihiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu goobaha uu maray u sharaxay taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye gaas Nuux Ismaaciil Taani oo tafaasiil dheer ka bixiyay guulaha wax ku oolka ee u hirgalay ciidanka naftood horeyaasha ah ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland deerkan ka dhisna Birjeex ee 600 mitir ciidanka dhisay waa ciidanku waa xoog fadhiya madaxweynaha dhismaha horta 22 xafiisii hoolka ah oo ka dhisanay halkan oo aan isneeri fooqan hadda jira waa kii dawladda hore dhistay idigu maxaa qabsateen bal horta wuxuu ku dara meesha waxa kale madaxweynaha soo watay miiska saraakiisha oo qolma saddex qol iyo hool marteed oo hadii marti noo timaado meel seexina inaan u helo inaan isna fooqa ka dhisanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u kurgelayay xarumaha ciidanka qaranka Soomaaliland ee ku yaala caasimadda Hargeysa iyadoo maanta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland looga dabaaldegayo sanad guurada 24aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidanka naftood horeyaasha ah ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland